geelka waa yar yahay tamilama berlis dhalan yahay waxaan joognaa tajura meel oo banaanka hadana ka sii socod leen hayna socod aqal Soomaaliyaalku waa buuxan waa kuwan Soomaaliya waxa ka baxay majaajilista weyn shakhsi saameyn ku lahaa waqti adagna dadka Soomaaliyeed la soo qaatay qofka aan ka hadlayo qof kale ma ahan ee waa walaalkeen marxuum Cabdi Muriidi Dheere Ajakis oo xaalad caafimaad oo adag oo soo wajahday darteed u geeriyooday oo Allana uga dhigay sabab Ajakis oo dadka Soomaaliyeed ay aad u yaqaanaan waxa uu kamid ahaa tiirarkii waaweynaa ee ku taagneed hibada majaajilada Soomaaliyeed waxaana Ajakis uu buddig u ahaa halganka loola jiray sidii dadka Soomaaliyeed looga farxin lahaa iyada oo loo marayo qaab farshaxamaysan oo ku dhisan dhaqanka Soomaaliyeed Cabdi Muriidi Dheere Ajakis maanta ayay tiisi gashay waana uu geeriyooday waxa uu dadka Soomaaliyeed uga tagay xusuuso waaweyn oo marnaba aan qalbiyadooda ka baxaynin Cabdi Muriidi Dheere Ajakis kasakow xanuunkan maanta uu u geeriyooday haddana waxaa jiray in dhawaanahanba uu iska xanuunsanaa oo uu ku faakacayay eheladiisa mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo dad kale oo shacab ah oo isbitaalka dhowr jeer oo kala duwan ku booqday waxa ay sheegeen in xaaladiisu mar ay ka soo reenaysay marna ay xumaanaysay maantana waxa soo baxay warkan oo dadka Soomaaliyeed in badan oo kamida ka nixiyay Cabdi Muriidi Dheere Ajakis oo caan ka ahaa guud ahaan Soomaaliya oo dhan waxa kamida waxyaabaha lagu xusuusto barnaamijyo kala duwan oo uu ka sii deen jiray mid kamida telefishinada dalka kaasi oo dadku ay aad u jeclaayeen barnaamijkiisa waxa uu fursad u siin jiray inuu ku soo saaro dhalinyaro Soomaaliyeed oo hibo leh kuwaas oo qaarkood bedeli karaba booska dadka waaweyn ee majaajilada caanka ku ah oo Ajakis uu ugu horeeyay marna ma ahayn Cabdi Muriidi Dheere shakhsi xaasid ah dadkii ay isla soo shaqeeyeen in badan oo kamidana waxa ay ku tilmaameen inuu ahaa nin aad u gacan qabta dhalinyarada yaryar ee leh hibada sare gaar ahaan dhinaca majaajilada waxa uu barnaamijkiisii gaarka ahaa ee ka bixi jiray telefishinkaasi gaarka ah waxa uu ku soo bandhigi jiray dhalinyaro Soomaaliyeed oo ay aad u adkeyd in fursad ay ka helaan telefishin weyn halkaas oo qaarkii ka soo aflaxayba ay maanta yihiin majaajiistayaal caan ah Cabdi Muriidi Dheere Ajakis xanuunka uu geeriyooday nuuciisa ilaa iyo hadda dhaqaatiirtu ma aysan faahfaahin laakiin waxa la sheegay in xanuunka ku soo booday uu ahaa mid aan horay loogu arkin kadibna uu in muddo ah ku jiray xaalad adag oo caafimaad maantana ay tiisi gashay Cabdi Muriidi Dheere maanta waxa uu u galbaday qabrigiisii iyo gurigiisii runta ahaa waxa uu qayb ka noqonayaa saaxiibadiisii hore ee la jeclaa ee ay kamid yihiin Marshaale Awkuku iyo kuwa kale oo badan dhammaan